إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقل القرش وذنق بيان قادوا وهذي قاله قرية الرمس قود كان يري قادوا وهذي قاله قيلوا من ريركينا قد قادوا وهذي قاله غسد دار قولا لفول قادوا وهذي قاله فقير غني اسمه ذو قيل قادوا وهذي قاله قفلة درين كل قبن قادوا وهذي قاله قربها جوغدون هولك قبن قادوا وهذي قاله كبر قلف أي قرون أقيال قادوا وهذي قاله قنقر غير كوت كهري قادوا وهذي قاله اسقنديري كان قوما مي قادوا وهذي قاله قاموس قعي وحكو قرن قادوا وهذي قاله قيب ما هو أذيقون قدين قادوا وهذي قاله ثم قادي واسد قف قلن قادوا وهذي قاله قندق فقرك يقوس رقيد قادوا وهذي هذا قاتي قيبتي بدنيد قادوا وهذي قاله iska qari cid baa kugu qabsanay qaadoo waadigaale afqashuushahoon cadaygu qaban qaadoo waadiga ilqalloocda dankoo qombura qaadoo waadigaale qangaara qayrkood ka haray qaadoo waadigaale qashin iyo qashaabiir qurmoon qaadoo waadigaale qamra cagaaran qiilagu xallila qaadoo waadigaale qandaraaska qaba baalxumada qaadoo waadigaale qarni guurka qoonkan ku dhacay qaadoo waadigaale nafqa faalan oo aan isqaban qaadoo waadigaale indha qoriya iyo dhidid qurmoon qaadoo waadigaale dad qamaama qayliyo dagaal qaadoo waadiga tafaqaawan dumar wada qarriban qaadoo waadigaale afqashuusha qori lagu mudmudo qaadoo waadigaale hurda qarowa soo jeed qamqama qaadoo waadigaale carab qolofahoo nuxurki qubay qaadoo waadigaale qabri ka hor qandhaan laga biskoon qaadoo waadigaale qarba booshilkiya gowsa qodan qaadoo waadigaale qoys dumiya qayliya huruuf qaadoo waadigaale ku qasaar macaashkana ka warrama saddex mawduuc oo waqti badan qaadanaya weeyaan waqtiga la haystaana waa waqti aad u kooban in qaad lagaga warramo mar labaad shiishad haddii laga warramayo waa qiiq tubaako la cabayo waa in sigaar laga warramaa dabeetana la isweydiiyaa maxaa differenisa u dhexeeya shiishadda iyo sigaarka marka saddex shay in lagaga hadlo waqti aan filaya 40 daqiiqo inuu ku eg yahay waa aad bay u dhib badan tahay cumuuman marka aan soo duubo waxaan isleeyahay qaad markaynu idhaahno soomaali qofka ahi malaa waa well experienced yani waa qof si fiican u yaqaana qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba taariikhiyan dib ugu noqon maayo laakiin qaadka waagii hore reer galbeedku juhdi badan may gelinin waayo dhulkoodana laguma cuni jirin manay aqoonin nimankii ugu horreeyay soo arka waxay ahayn shantii nin ee Scandinavian-ka laga diray ee magacaba uu bixiyay ee Yemen tagay iyagana markii dambe kana caalaysayba way madheen marka cumuuman la eego marka qaadka daraasaadkiisu waxay inta badan bateen toddobaatanaadka wixii ka dambeeyay baxthi badan baa lagu sameeyay natiijooyin tiro badanina way ka soo baxeen daraasaad jaamacaad tiro badan kuwa Mareykanka kuwa Jarmalka kuwa Switzerland qaar Ingiriiska dad badan baa sameeyay buxuus Sacuudiga xataa jaamacaddii Soomaaliyeed ee Muqdisho baxthi bay ka sameeyeen 3 marka la eego buxuustaasi tirada badan lee laga qoray runtii dhammaantood waa ku argagax gelinayaan wax wanaag lagu sheegayaa ma jiro tala United Nations WHO 1973 baan filayaa markay baaritaanadoodii koowaad sameynayeen 40 maaday sheegeen oo ku jira laakiin waaga may aqoonin maadada tan ugu khatarsan ee cathinone la yiraahdo waayo cathinonku maadada ay markaa iyagu moodayeen inay ugu khatarsantahay ku jirta waa cathinku waa light drug waa stimulant waa drugska saddex qaybood bay u qaybiyaan qayb kicisa jidhka iyo maskaxda iyo qofka bini'aadamka fikradiisa iyo qayb nabto oo dejisa oo hurdaysa iyo qayb hallucination
khayaaluun iyo inuu wax maqlo iyo riyo ku itixaanta qaadku isagu wuxuu ku jiraa waa stimulant kokainku la kooxiyey waa qaybaha kiciya qofka bini aadamka qaadka marka ugu horeysay wixii ay ka heleen maadada caffeinka oo ay ku tilmaamayaan inay psychoactive drug tahay oo ay la darag fudud tahay ayay moodayeen inay wax walba tahay inkastoo iyada lafteedu caffeinku World Anti-Doping Agency-ga mamnuucaadkiisu ku jira qoladan orodada iyo olombiga iyo kuwa wax ciyaariya maadaadkan laga baadho ee qofka leega inuu dragaysan yahay in kale kuwaasay ka tirsan tahay waxa uu shartiya inuu 5 microgram per milliliter inuu ka yar yahay hadduu 5 microgram soo gaadho waa drug abuse waa kuwan orodada laga reebay iyo waxaan oo dhan bay ku jirtaa marka asliyan iyaba waa maado maadaadka dunida loo rumaysan yahay inay drugska ka mid tahay laakiin way ka fududahay ta kale marka loo eego cathinonka maadada la yidhaahdo mawaadda ugu khatarsan ku jirta markaa hore lama garanin laakiin waa lagu qanci kari waayey inay cathin qura waxa ku jira ay tahay haddana wixii kale ku jiray waa xoog loo sheegi kari waayey ama la garan kari waayey waayo waa lagu qanci kari waayo cathinku waxa uu ugu badan yahay inta la tuuro marka haddii waxa loo cunaya ay tan tahay bay leeyihin maxaa loo tuuraya ma iyada aad loo cuno garaabadan weyn iyo ushan dheer oo baalka samaysan iyo kuwaasay ku badantay intan yara curubta la goosto kuma badna su'aasha isweydiinta le waxay noqotay marka war haddii bahalkan cathinu yahay waxa loo cunaya maxaa intii la tuurayeyna ku badiyey intan la cunayana ku yareeyey waa inay jirtaa wax kaloo intan yari ay wadato gaara taasaa waxay keentay in baxtiga dib loogu noqdo 1975 ayay markaa isolate gareeyeen oo soo saareen maaddo la yidhaahda cathinon inay ku jirto 1978na molecular structure-keeda ayaa la soo bandhigay oo waxay reciprocal u tahay waa uun amphetamine natural amphetamine bay ku tilmaamaan waa amphetamine muraayadda chemicalisay u samaysantahay haddii muraayad loo dhigo qaabkay u soo baxayso ayuunbay u soo baxaysaa bay yidhahdaan cathinon waxyaabaha ay baadhista ugu adkaatay waxaa ka mid maadaama westranku inta badan oo dhulka wax lagu baadhayo qaadkuna wakhti badan la soo saadayo waa maaddo aan joogisteedu badnayn 48 saac kadib cathin iyo neuroephedrine bay isu beddeshaa waa 48 saac marka geedka laga soo jaro oo qura ayay sideedii u joogi kartaa wixii ka dambeeya waxay dhahdaan nimanka qaad ka warramaa qaadka waxa la saaro dhami way dheereeyaan sababta ma garanaysaan di dameer la saaro di awr la saaro di gaadhe la saaro wax kastoo la saaro waa la eriyaya waxa weeyaan maadadan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaarsiiyo maadada tan inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ee hore u gaadho waa la soo duuduubaa oo berigii horena caleen muusiya waxbaa lagu soo duuduubi jiray amaba si moisture-keeda iyo waxeeda loo ilaaliyo waayo maadadani hadday iftiinka la kulanto ama oxygen-ka ay la kulanto markiiba way isbeddeshaa qolada qaadwalaha waxaa ka maqashaan kala furfuro ma jecla inay cunaan waa mid rabdada nasiib ay dhahay mid hadda duuduuban waayo kan duuduuban cathinontiisiibaa ayaa u ilaashan laakiin haddii la furfuro oo la baadhbaadho kolba dabadda loo soo bandhigo oo uu iftiinka la kulmo ama oxygen badan la kulmo chemical structure-kiisii baa isbeddelaya marka cathin bay noqonaysaa ama neuroephedrine bay isu beddelaysaa oo cathinon bay ka baxaysaa marka waa unstable bay yidhaahdaan maaddo maadaama ay maaddo unstable tahay waa in qaabka loo kaydinayo qaabka loo dedejinayo qaabka qofka loo gaadhsiinayo 48 saac hadduu dhaafo daragii loo baahnaa maaha waa inuu wakhti fudud lagu geeya cumuuman 40 maaddo wax ku dhadhow baa ku jira tanise waa maadada ay drag ahaan u leeyihiin waa ugu khatarsan tahay waayo dunida badhna drugska herarkiga ay kala leeyihiin qaybta saddexaad baa ku jirta maraykankana qaybta afraad baa ku daraa laakiin mawaad kalena waa ku jiraan maalan tanic acid baa ku jirta tanic acidka waxa weeyaan waa acid dhan lagu magdiyo haragga
kan qaadka cuna waxaan ilku uga daataan ama dibnuhu caddaadaan ama waa nin ay sii haragga lagu magdiyey ee qurunka lagaga gooyo dee afka ku walaaqaya that's why uu dhacayso waxa kani waa sababaha ku keena inta badan alsarku ku dhaco waxyaabo badan oo kale ku jira laakiin maadada tani cathinonka la yidhaahdaa chemically waxay dhahaan laba shay bay sababtaa wax degdega iyo wax long term ah waxyaabaha degdega ay keento waxaa ka mid ah qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjirhkan kelida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan firkanaxaasi wuxuu yahay qofku markuu baadadatani jidhkiisa gashay koowaad waxaa bilaabmaya firkanaxu waa qofku markuu dagaal maalan markaad u diyaargaroobayso kale qofku markuu dagaalamayo jidhkiisa maxaa isbedela waxa isbedela wadna garaacistiisa badata si aad enerjigu xoog u heli karto waxa isbedela bay yidhaahdeen yacni waxyaabo badan oo jidhka ka mid ah ayaa isbedelu ku dhacaa marka maadada tani markay jidhka gasho xididadu way yaraadaan waayo waxaa loogu talagalay qofku hadduu dagaal galo xididku hadduu ballaadhan yahay dhiig badan baa kaa qubanaya ilahay baa kuugu talagalay marka aad dagaalamayso in xididkaagu yaraado si aan dhiig badani kaaga quban mawaadda sameeya maxaa la yidhaahdaa bahashan la yidhaha xinjiraha way diyaargaroobaan si haddii nabar kugu dhaco qofka qaadka cunaya instantka koowaad wuxuu la mid noqdaa sidii qof dagaal galayoo kaluu jidhkiisu u react garaya marka waxa isbedela waxyaabo tiro badan leh effectska ay sheegaan markaa waxaa ka mid ah garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota temperatureka jidhkaoo kor u kaca blood pressurekaagoo kor u kaca qofka euphoria taga ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxa bilaabma bay dhaaheen euphoriada marka uu gaadho marka hore maadada tani nusu saaca hore waxay ku sii jirtaa weli inuu jidhku nuugis ku sameeyo laakiin marka uu nuugistaa jidhku uu ku sameeyo uu jidhka ay gasho waxaa bilaabma wakhtiga hadalbadnida qolada qaadka cuntaa marka hore baalka lagoo goostaa cabbaan marka la joogaa sheekada isku duba dhacdaa markaasaa la wada hadlaa waxay dhahdeen maadadani waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku talkative isu bedelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay dhahdeen manic behavior ama hyperactive buu noqdaa dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyiinaad u fiirsatay midii garaabadan agtiisa taallu googooya qaar qori yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yani waa manic behavior bay dhahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihin qofku inuu jidhkiisu controolku ka lumo qaybaha qaar ka mid a ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive uu noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabahay samaysa waxaa ka mid a bay idhaahdeen xiidmaha iyo qaybaha kan way seexisaa muscle contractionka release baa ku dhaca taasi waxay sababtaa constipationkan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca baasiir baa ku dhaca yacni xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxaa ku dhacaba la yidhahdo qofku wakhtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yaro daayo wakhti yarka uu ka baxo hallucination baa ku dhaca bay yidhaahdeena ah inuu waxyaabo sasawiro waa waxaanay soomaalidu dubaabka tidhaahdo soomaalidan maqalqolada qaysa markay yidhahdaan qaad baan waayo dubaab baa cunay iyo kan baa dhacay waa hallucinationiskan bay yidhaahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxaa ka mida bay yidhaahdaan hadduu qofku marka uu iska daayo trimorba ku dhacba isagoo iska fadhiyin baa kolba jidhka meele dhaqaaqda uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jidhku dhaqdhaqaaq badan uu sameeya nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhaheen jidhkiisa kiilo kasto ka midi inuu 0.8 milligram of cathinon uu qaato maalan ninka 70 culayskiisu yahay
56 milligram katonana buu u baahan yahay siduu waxaanaynu sheegaynoo dhan uu u gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa wakhtigoo yar inaan wax badan ka tallaabo oo soo koobo waxyaabaha ay leeyihiin uu sababaa waxaa ka mid ah sonkorta jidhka baallada ku jira tribinoidska ku jira daraaddeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu u yahay waayo sonkorta jidhkooda ayuu tiro badiyaa soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraa bay moodayaan waxyaabaha uu keena waxaa ka mida bay yidhaahdaan xanuunada psychologicalka ee qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idiraabka nafsiga ah ama waxaan iminka soomaalidu ay buufiska u bixisay qofkoo codad maqla ama xataa dadka qaarkood paranoid wuu dhaafaa psychophrenia buu la gaadhaa oo ah inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo uu yidhaahdo waa lay xamanayey laba qofoo meel iska fadhiya yidhaha maxay imaagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay igu hadal hayseen waxaa ku dhaca bay yidhahdeen qofka isagoo qura maahe weliba wakhtigan dambe maadaama uu batay conceptionkiisii cunistiisii markay badatay qaad qura maaha bay leeyihiin sidiisuu toxic ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinaya caleenta iyadaa la iibinayaayo inay fiicnaato la rabaa dhalaasho marka pesticideska iyo insecticideska iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno DDT iyo qaar la mida baa lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuna qaar ka mid ee DDT caadiya dhiigooda dhakhaatiirtu intay baadho DDT caadiya laga helo ma aha inuu qaadku materialkan DDT-ga u leeyahay ma laha isagu laakiin waxa uu la socday waa dawooyinkii lagu buufiyey wixii lagu ilaalinayay inuu si fiican u baxo ama caleentu aanay daldalool yeelanin ama ay quruxsanaato waxaynu naqaanaa qaadku wuxuu keenaa balwado badan oo kaluu bilaabaa inta badan qofku markuu qaadka cuno smokingkuna wuu raacaa inuu sigaarka cabo dad badanoo galbeedka jooga qaadka markay cunaan khamri ka daba cabbaan waayo khamradu waxay ka mid tahay drugska kuwa caqliga dejiya ama daboola qaadkuna wuu kiciyaa marka waan ku jebinayaadaan ay yidhahdaan waa runtood qaadku kor buu u qaadayaa markuu dawakhana khamri markuu cabbana dib buu u celinaya haddana waa laba waaliyadoo midba dhinacu socoto waa ka mid dee waxyaabahan kale drug relatedka la ah meelahan lagu cunaya waxa kan xanuunada infectionka lagu kala qaadaa markay maalmaa ka mid ah waddan yurub ka mida bay godadka yara lagu qayalo mid ka mid ay qabteen waxaan rajaynayaa haddaanan hilmaamin 12 qof bay qabteenoo 8 bay tiibbay ka heleen yacni maca way wateen raajitadoodii oo dadkan waa loogu taagi waayay dhakhtarkaale iyo waxaa marka qolada hygiene-too guuraysaa meesha intay dul timi ayaa la qabqabtay dabeetana toos baa loo saaray sawirradii wixii la rabay in laga qaado 12 qof baa 8 laga helay TB isagu TB-da ma keenin laakiin circumstances-kan ku xeeran dhulkan lagu qayalayo meeshan la fadhiyo waxa kan ayaa keena problemskan tirada badan leh waxa isweydiinayaan inta aan drugga kanaad xoog u isticmaashay aanu waalida gaadhsiinin financial crisis-ka uu sameeyo dhaqaale burburka uu sameeya isaga qayb weyn ka ah bay yidhaahdaan waalida ku timaada iyo buufiska dadka kan ku dhaca waxaa ka yimaada bay yidhaahdeen qofka oo 8 saacadood oo wakhtigiisa ka mid ay ka khasaarto oo dee meelun fadhiyo sheekaynaya waxay yidhaahdaan waxaa ka mid ah marka uu cuno ee uu wakhtiga uu cunistiisa ku jiro waa hyperactive marka hore laakiin marka dambe wuxuu bilaabaa inuu dumo marka uu soo dumayo haddaad meelaha qaadka ay ku cunaan aragto marka hore ee bahalka la bilaabo waa la wada farfaraxsan yahay markuu si fiican jidhka u galana sheekada iyo hadalkaa badata marka dambena waa la kala wada aamusaa ninba meel buu gaar isaga jeestaa uu u aamusaa waa markuu bilaabmo bay leeyihiin euphoriadii inay degto marka drowsinessku waa markuu ku bilaabmo qof waliba inuu gaar u aamuso hadhow markuu ka luqluqdo inuu meelaha finfindhicisho ama keligii meel istaago waxyaabaha uu keena waxaa ka mida bay leeyihin hadhow inuu hurdada seexan kari waayo hurdayari baa ka mida waxyaabaha la socota markuu hurdada seexan kari waayo waxay yidhaahdaan nin soomaaliyeed baan arka wuxuu igu yidhi 7 shaqaa layga eriyey buu yidhi 7daba qaad baa laygaga eriyey
يعني تضرب الشقان كتجي بيقولي تضرب ده بوح على يجير يون أنا جو أنت هبين كي قاضع عني سبحي أمد عليه أما هروك عكري ويا ما وقت الدم بتجي سبب قاض باليجيري وين سكت ده يبيقولوا الشقان بلابي شمس النضود يسكو حكتان حتى مالين حنوصن بيقولي ناس يقول هذا بيقولوا وردوا ضدكم مالين حنونا وقاط هاي ما تسكحنوا ستنا يعني قال هذا واحد بروان حنوصن دونا بيدا 3 days year بالله وقول ين marka wuxuu tilmaamayay in noloshiisa inta uu difference ka u dhaxeeya inta uu leeyahay markaan soo duuduubo runtii waqtiga daraadeed waxa laga qoray aad bay u tiro badan yihiin laakiin qaybta psychological ka markaynu tilmaamno waxay dhahdaan stage 1ka 20 ilaa 25 daqiiqadood ama 15 daqiiqadood ilaa 20 daqiiqadood ugu horeeya wuxuu galaabay yiraahdeen xaalatu tanbiih ama at-tanabbuh xaaladda soo jeedka hore sidii nin koofi cabay oo kale firfircoonida hore u dareema 90 minute markay gaadho bay yiraahdaan waa xaalatul kayf waa euphoriada markuu gaadho marqaanka rasmiga markuu gaadhay hadalku tiro batay weeyaan xaaladda saddexaad bay yiraahdaan oo marka uu ka kacay waa marka alqalaq nafsi uu bilaabmo ان مقاييس tiro badan ay ku sameeyeen ama qiimeyn tiro badan iyo baaritaano tiro badan ay ku sameeyeen waxay cadeynayaan koow inuu khalkhal galiyo cawaatifta qofka bini'aadamka oo dhan oo ka mid yahay faraxa murugada ay ka mid tahay nacaybka jacaylka ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa ay ka mid tahay dhiiranida baqaha waxa soo dhan khalal buu ku sameeyaa bay leeyihiin oo qofku normalitygiisa ma noqdo marka aan soo duuduubo waxaan leenahay waagii hore ee qaadka aqoonta loo hayay scientifically ay yarayd muran badan baa jiray bayna alculamaa kuwa sharciya iyo kuwa kaleba muranku wuu badnaa waayo qadaayaad scientifica oo yaalay ma jirin laakiin wakhtigan dambe hadda qof aan ogeyn unbaa murma laakiin daraasaadkiisa cilmiga qofka akhriya runtii ma murmi karo sida awgeed ayaa munadama sixa alcaalamiya WHO 1979 ayay baaxisiinteedu waxaa lagu daray inuu ka mid yahay 40 maaddo bay sheegeen oo qaadka laga helo waxaana aakhirkii la go'aamiyey inuu drugska ka mid yahay maandooriyayaashay ku dareen مؤتمر العالم الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات iyaguna waxay go'aamiyeen inuu ka mid yahay mukhadaraadka sharciyan xaaraamta ah fataawi ulama almuslimiin markaynu eegnana fataawi aad u tiro badan oo fogeynaysa ayaa ka soo baxday duduub ahaan waxay adilla sheegaan waxaan jeclay inaan mar wada sheego laakiin haddaan qaadka inaha ku koobo oo masalada labaad ay yara lay dhiibay tilmaamo oo ku saabsiisan shiishadda intaana shiishad ka warramin malaa inaan dee sigaar wax yar ka tilmaamnaabaa roon sigaarku maanta cilmiyan waa maadooyinka sida fiican loo baadhay waxay caddaynayaan 400 oo maado inay ku jiraan sigaarka yara la qiiqinayo 400 oo maado FDA-ga Mareykanku waxay u ogol yihiin 599 addictive baa loo ogolaaday in lagu dari karo legal oo lagu dari karaa 400 oo maado wax gaadhaya ayaa ku jira bay yiraahdeen qaar ka mid ah haddaan idin sheego u fiirso waxa ku jira maadooyin sunah waxa ku jira aan idin tiriyo qaybo ka mid ah sigaarka qiiqiisa la cabayo waxa ka mid ah waxyaabo ku jira ammonia ammoniyadu waa waxyaabaan musqusha lagu maydho waa detergent musqulaha lagu maydho waxa ka mid ah acetone ama acetone acetonku waa solvent waa waxyaabahan mudiibka wax lagu dhalaaliyo مثلا waxyaabo loo isticmaalo waxa ka mid ah dumarku xamuurada ay marsadaan bahaladan la iskaga maydho acetone ba ka samaysantay waxyaabahan lagu maydho ee lagu dhalaalinayo xamuuradan yar ay dumarku marsadeen acetone bay ka samaysantay waxa ka mid ah toluene yana waa mudiib kale waa solvent kale oo industrial warshadaha lagu isticmaalo waxa ka mid ah
ilaa iyo 6-7 maado oo la wada ictiraafsay inay ka mid yihiin mawaad musartana ama carcinogenic substances mawaadda keenta kansarka pyrin baa ka mida urethane baa ka mida naphthalene baa ka mida cadmium baa ka mida cadmiumka ma taqaanin qiiqa sigaarku ku jira waa baaterigan gawaadhida bahal ku jirta baateriyadan gawaadhida inuu ku kaxaysano bahal ku jirta weeyaan cadmiumku waxaa ka mida dibenzofurane waxaa ka mida maadaad mushica xataa radioactive qaar ah polonium 210 baa ka mida oo maadda mushica ah maaddo radioactive leh waxaa ka mida sumo مثلا maadadan arsenica la yidhahda arsenic waa poison lethal poison weeyaan waa sunta quraanjada cadi markay ku qanintaay kugu reebto quraanjadana cad sumaha markay dadka qanintaay ku reebto waa arsenic baa la yidhaahdaa waxaa ka mida naftaliinta waa sun kale baashan yar ee dharka ku xoqxoqataan sunta ku jirta weeyaan waxaa lagu laayaa dadkan jidhkeennu markuu gaboobo xasharaad baa jira dusheenna iska fuushanoo cuna dadkan allergika noqda baa markaa allergi ku noqda marka bahashaas alcatha baa af carabiga alcath bay yidhaahdaan qaatil alcath weeyaan waa xayawaanadaa sariiraha korkooda saaran carruurtan yaree allergiga la yidhaha laga beddela sariira waa xayawaanka saaran sunta lagu laayo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah DDT caadiya ku jirta qiiqa sigaarka waxaa ka mid ah carbon monoxide iyo carbon dioxide labaduba waraaqdiisan sare ee gubanaysa carbon monoxide baa ka yimid carbon monoxide waa qiiqan uu soo daayo gaadhigu inta aanu weliba oxygen-ta dabadda la kulmin aanu dioxide-ka noqonin ee monoxide-ka wiya waana sun sidiisa waxaa ka mid ah methanolku waa rakidyadan cirka loo diro shidaalka lagu shido ayaa ka mid ah waxaas qiiqa sigaarka ku wada jiraan waxaa ka mid ah butane gas walaacadan yare la shido gaaska lagu shito ee shidaalka laga soo dhex saaraa ka mid ah waxaa ka mid ah phenyl chloride waa plastigiska ladaa'inka plastiga marka la samaynayo maaddo ka mida mawaadda lagu sameeyo waxaa ka mida mawaadda ku jirta gaasiskan meelaha wax lagu gowraco waxaa jira xayawaanada qaar ay bakhtiyaan oo gaas lagu dilo gaasiskaasi suntaa qaar ka mida ku jira yacni kulli haada aan sheegayo haddaad google imageska gashaan ama youtube aad gasho waxaad arki doontaa iyadoo xabad sigaara inta la sawiray sumahanoo daasada ku jirana ay dhinaca kaga wada sawireen oo la tilmaamayo waa masaa'il aan muran ku jirin waxaa la rumaysan yahay maanta kansarka ugu tirada badan lee dunida ka dhacee laab ku dhaca inuu ka yimaado qiiq sigaarka inaynu isku maanta ma aha masale muran ku jiro inuu boysi yahay bale waxaa la leeyahay 600 oo kun oo qof buu dilaa oo ah sigaarka salbiga ah kacabaya mooyaane kan soo afuufay dadka ay la nuugayaan kuwa u dhintaa 600 oo kun dunida gaadhaya bay leeyihiin sigaarka caadigaana dunida 5 milyan dad ah buu ka dilaa bay yidhaahdaan shiishaddu haddaba ma ka gedisantahay meeshaan u socday waxay ahayd shiishaddu miyay ka gedisantahay maya shiishaddu waa tubaakadii 3 nooc bay u isticmaalaan qolo tubaako khaliya saarta bahasha ku gubta oo dhuxul saara qolo tubaako munakaha intay xagga dambe galaan bay khamiiriyaan waxyaabaa lagu khamiiriya waxaa ka mid ah khadkan wax lagu daabaco madbacadu khadka isticmaalaan waa khad yaroo dhalada yaro intaa waxa laga yaabaa dhowr kunoo kitaab inay daabacdo kaasaa lagu daraa waxyaabaa lagu khamiiriya ka mid ah waxaa ka mid ah nakahaadka frutiska ama tufaax ama nacnaac ama waxaasi nakahaadkaasaa ka mid ah waxyaabaha ay ku sameeyaan laakiin shiishaddu miyay ka gedisan tahay shiishaddu kama gedisana 3 maadde ugu khatarsan ee sigaarka ku jira waa nicotinka soo ma taqaaniin nicotin waa safiirkii faransiiska sigaarka u doodi jira baasha loogu magac daray ee lashboon deganaan jiray waa nin faransiisa magacii nicotinka kow iyo daamurka maxaa tidhaahdaa laamiyeri miyaa la yidhaha xamar baalkan lagu dhiso waddooyinka
يا لامي أوكي وقطران ودامر إيوه كربون مونوكسيد وصدحدا ugu khatarsan ee ku jira bahalka ee mawaadoodu tiro badan tahay kuwa kale inuu sheegaro dhamo khatar waa ku jiraan laakiin quantity-ga yar quantity-ga ku jira ayaa yar laakiin saddexdan maado quantity-ga ku jira badan shiishadu waxay leeyihiin kow carbon monoxide-ka ku jira wuu ka badan yahay ka laga cabo qofka shiishada caba carbon monoxide-ka uu caba wuu ka tiro badan yahay ka sigaarku cabo waayo ka sigaarka uu cabaa wuxuu ka yimaadaa waraaqda yar gubisteeda laakiin kani wuxuu ka imanayaa bay leeyahay dhuxusha lafteedii ilaa dhuxushii baad nuugaysaa oo qiiqii dhuxushaad nuugaysaa maadaama aad qiiq dhuxuleed nuugayso carbon monoxide-ka aad cabbaysaa waxay leeyihin 20 times buu ka badan yahay ka sigaarka laga cabo waa marka koowaad waana maadda musartana waa maadooyinka kansarka laga qaado waxaa kaloo ka mid a bay leeyihin nikotiinka iyo daamurka ku jira iyana way ka tiro badan yihiin labadaba waxaan jeclahay inaan waxoogaa ka tilmaamo shiishadu dadka badh horta shiishada iyo sigaarka waxa qudha u dhaxeeyaan odhan karee muuqda waa filtrationka waa qaabka loo filter gareeyay labada sigaarkana buush yar baa la dhex mariyaa u filtara tanna biyaa la dhex mariyaa labaduba waxay filter gareeyaan oo badani ma jiro waxa ugu badan ee labaduba ay filter gareeyaan waxa weeyaan in daamurka ka mid ah waa sababta ay biyaha shiishaduna yalowga u noqdaan sigaarka dabadiisuna ay yalow u noqoto maadooyinka ku jira sigaarka maadooyinka ku jira sigaarka dhammaantood waxaynu leenahay waa ku jiraan shiishadana faraq u dhaxeeya ma jiro waxa qura faraqaynu nidhi waxa weeyaan qaabka loo sameeyo filtrationka ama midna biyo dhex mara midna buushkan yare la cabayo dhex mara labadaba waxan ka casi waa daamurka ama laamiga markuu meesha tan dhex maro qayb ka mid ku hadhaa casaada baxthi ay sameeyeen ama cilmi baaris New Zealand nagu sameeyaa waxa la tilmaamayaa sigaarka la cabo sanadkii daamurka ku jira bay yiraahdeen haddii waddo lagu dhisi lahaa 5 kilomitir iyo badh waddo ah baan u baahateen daamurka leen lagu dhiso bay yiraahdeen sigaarka bini'aadamku cabo kaliya lagu dhisi kari lahaa waa daamurka ku jira waxay tilmaamaan nikotiinka ama sunta nikotiinka ee baal ku jirta horta daamurka intaanan dhaafin daamurka oo qura haddii isaga chemically la baadho konton maado oo sababa kansarka ku jira daamurka kaliya konton maado oo sababa kansarka ayaa ku jira daamurka dhexdiisa maadadan kale nikotiinka aan tilmaamayno ku jirta nikotiinka sidiisuba marka hore waa maado lagu laayo cayayaanka beeraha iyo dhirta yaryar labadaba waa lagu dili karaa beeraha marka lagu shubo dhirta yaryar ka soo horbaxdana waa gumaadaysaa xayawaankana waa gumaadaysaa walidaalka waxa la yidhaahaa 60 miligram oo nikotiina haddii wariidka lagaa siiyo haddii xididka lagaa siiyo khalaas oo dhimanaysaa laakiin inuu jidhku absorb gareeyo sababka laga absorb gareeyo ayaa quantity-geedu yaryahay that's why aad u nooshay weli laakiin haddaad sigaar cabbi lahayd oo xagga lagaa siin lahaa waa horay madhan lahaayeen cidi kama noolaateen qolada sigaarka cabta si kale markaynu tilmaamno nikotiinku waa maado sababta walafka ama addictionka oo uu ka khatarsan yahay xataa khamriga markay noqoto xagga addictionka maada qiiqan la cabo 85 ilaa 90 buu gaarsiisay bay leeyihiin halka khamriga ay ku qiimeeyaan 15 qaadku dhanka uu ka yaryahay oo walafka qaadka waa maadooyinka la walfu ka mid yahay qaadku addictionka laakiin inaad qaadka iska daysaaba ka fudud inaad sigaarka iska dayso oo labada waxa adag sigaarka addictionkiisu ka adag yahay qaadka marka aan soo koobo waa xanuunkan keena qofku inuu cimri degdego dhalinyaro markiiba madaxu cadaaday oo calaamaadkii da'du ka soo muuqdaan waa cimri degdeg sigaarku wuxuu ka mid yahay xanuunada keena cimri degdeg ah waxay yidhahdeen sigaar cabku 10 sannadood buu da'diisa ka weyn yahay bay yidhahdaan muuqaalkiisu waa xanuun ku dhaca wuxuu ku dhacaa bay yidhahdaan maado jiin cajiib ah oo ah jiinka
dib u cusboonaysiiya DNA-da qofka iyo maxay selskiisa unugiisa cusboonaysiiyo khalkhalgeliya marka sida xanuunkaasi oo kale ayuu wuxuu ku reebaa qofku inuu ka horgaboobo qofka kale oo sigaar cabku waxay dhahaan 10 sannadood buu ka weeyay da'diisa normalka ah markaan soo koobo shiishadda daraasaad badan baa maanta lagu sameeyey cilmi baadhis badan maalan jaamacadda Virginia Commonwealth ee Maraykanka ah cilmi baadhis ay samaysay uu hogaaminayo professor la yidhaahdo Thomas Eisenberg oo lagu soo saaray jariidada caafimaadka yani atib alwaqaa'iga ee Maraykan waxa uu leeyahay kuwa shiishadda cabaa waxa ay nuugayaan ama waxa ay cabayaan carbon monoxide iyo nicotine u bandhigaya wadna xanuunka iyo xididda engega iyo nicotine oo ah isna maadada keenaysa idmaanka markaynu soo duuduubno daraasada ama cilmi baadhistaasi waxa lagu sameeyay 30 qof oo mutatawiciina oo da'doodu 18 jir ilaa 50 jir u dhaxayso qaarna xabad sigaara la cabsiiyey qaarna shiishad baa la cabsiiyey kadib waxa la baadhayaa markay midna sigaarka cabo midna shiishada cabo qof walba dhiig baa laga qaadaya waxa la baadhayaa dhiigiisa inta maaddo ee ku jirta siiba waxay baadhayeen oxideska carbon monoxide iyo carbon dioxide waxa jirkaaga ku jira waxay kaloo baadhayeen nicotinka jirka ku jirta dabeetana waxay dhahdeen halka shiishada ee wacabay wuxuu ka badan yahay kan xabadda sigaara la siiyay 48 goor يعني isagoo 48 midho sigaara cabay bay u dhigantaa walidaalika wuxuu tilmaamayaa professorkaasi Thomas Eisenberg la yiraahdo daraasadan ama cilmi baadhistani waxay sheegaysaa buu yiri nuugista la nuugo shiishadu inay ka khatarsan tahay sigaar cabista caadiga ah markaas daraasaadkan Ingiriisku uu leeyahay mukaafaxatu tubaqa la dagaalanka sigaarka iyana waxay soo saareen iyagoo baxthi sameeyay inuu in badan ka badan yahay carbon monoxide iyo bahlada uu nuugaya waxa ka sigaarka cabaya caadiga uu nuugayo waxay qiyaaseen dhiigiisa mid walba inta ku jiraysa halka qofka caadiga ah bay yiraahdeen 3% wax ku dhow dhiigiisa oo dhammaan aanu si caadi ah u shaqaynaynin ka sigaar cabka fudud 20% baan dhiigiisa si caadi ah u shaqaynaynin carbon monoxide ku cabay daraadeed ka sigaar cabka weyn baakriya wax ka badan caba 30% ilaa 4% dhiigiisa ka mid ah normal u shaqaynaynin bay tilmaamayaan Dr. Warren wuxuu tilmaamayo kale 10 miligram oo tubaaka ah oo shiishad lagu cabo 30 daqiiqadood waxa ay keensanaysaa buu leeyahay 4 ilaa 5 midho sigaar u dhigantaa buxuusta nooca laga sameeyay waxay ku xidhantahay tubaakada nooceeda qofka iyo qaabka uu nuugayo iyo bahasha iyo qaabka uu samaysantay marka qaar baa waxay gaari karaan bay leeyeen ilaa 400 oo xabbo oo sigaara normality wuxuu u dhaxeeyaa bay leeyeen 48 xabbo ilaa 70 midho sigaara marka dadka shiishada caba waxay leeyihiin waad ka khatar yartayeen kuwa sigaarka cabaya kama khatar yare uu ka khatar badan yahay dhowr sababood baa uga khatar badan yahay dosage-kiisa oo dhan isaga horta mar buu wada qaataa ka sigaarka cabaya waxa laga yaabaa inuu waqti u dhaxdhaxaysiiyo laakiin kan hal saac buu fadhinayaa halka saac oo dhan qiiq buu cabaya waa marka labaad ee sigaarka noocun ma qaabun baaba loo controlaa waxa lagu darayo laakiin xashiishada si loo kala loo sameeyaa shiishada tan la nuugayo si loo kala ayaa nokahaadkan iyo waxa lagu darayo lagu sameeyaa marka control kuma jirto saadaradeed way ka khatar badan tahay bay leeyihiin دراسة سعودية ay sameynayeen jaamacad ku taala 4 sanadood socotay waxay ku qiimeeyeen 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa bay baadheen way kala noocyo gadisantay bay leedahay waana kala khatarsantay laakiin marka la isku celceliyo bay yiraahdeen 8.32 miligram nicotina ayaa cala raas ugu jira waxay ku qiimeeyeen oo ay tilmaamayaan shiishadaasi inay u dhiganto 70 midho sigaara sigaarku dunida wuu soo yaraanaya Asia iyo caalamul muslimiinkana wuu sii tiro badanaya reer galbeedku horey u ogaadeen sigaarka iyo dhibuhu leeyay dabeetana qawaaniin badan baa lagu xadeeyay
dadkii wacyigelin badan baa la siiyey brogaraamo badan baa laga sameeyey idinkana waxaan idin leeyahay carwaa ninka google image intuu galo ama youtube galo sawirrada xanuunada laga qaado intuu daawado sigaar dambe caba intuu daawado dadka xanuunka ku dhacay qof walba clinican in lagu tusayo markii uu baakirka hore cabay siduu noqday markuu intaan cabay siduu noqday kansarka ku dhacay inta xanuuna ku dhacay ay tirinayaan tala bixinta dhakhtarka qaar diiday iyo say ku dambeeyeen haddaad aragto yacni maad istidhahdeen waxba qof bini aadami uu dib ugu noqon karayaa laakiin caalam alislaami iyo eeshiya inteeda badan waxaad mooddaa sigaarku inuu ama qiiqa cabistu inay si hayru caadiya noqotay sacuudiga oo meeshay diintu ku soo degtaya 15 bilyan oo sigaaru cabaa sanadkii waxay yidhaahdaan 8 bilyan oo lacagu ku isticmaalaa masar 80 bilyan oo sigaaray cabtaa sanadkii bay yidhahdaan dunida waddanka ugu badan marka dadka degan iyo inta sigaar cabto laysu eego waa turkiga 7% baa cabaa waa caalam alislaami waxaan ka warramayaa duwalka carabeed bay yidhaahdaan 200 bilyan oo sigaaray cabbaan sanadkii oo inta badan maraykan ay ka iibsadaan marka la isku dara bay yidhahdeen dowladaha carabeed waxay lacag ku bixiyaan waxbarashada iyo caafimaadkoo la isku daray intay sigaar ku cabbaan baa ka badan aduu qiyaas ummad muslima oo wasaaradda waxbarasho waxay lacag isticmaasho iyo wasaaradda caafimaadku waxay lacag isticmaasho marka la isku daro wasaaradda sigaar cabistu ka badantay waa caalamkii carbeed aynu ka nimi caalamkii muslimiintu saasuu u yaallaa runtii hay-a alcaalamiya waxay ku tilmaamaysaa dunida 6 daqiiqiyo barhkii kastaba in qof sigaar uu u dhinto 6 daqiiqo maaha waa 6 sekond 6 sekond iyo barhkii kastaba inuu qof sigaar dilo ولذلك با جمعية الأمريكية لأطباء الأورام أما أورك مريكان كي دخاتيرتا حنونada bararada shiray mu'tamar ay lahaayeen ayaa waxa ka hadlay John Safrin nin la yiraahdo markaas wuxuu yiri sigaar cabistu ama qiiq cabistu buu yiri waa silaax ad-dimar ash-shamil al-wahid alladhi yuhaddid al-bashariyya عبر مختلف أنحاء الأرض WMD buu leeyahay WMD-ga soo taqaaniin weapons of mass destruction bay yidhahdaan wuxuu leeyahay waa hubka qura ee wax gumaada ee dunida lagu isticmaalay bini aadamka khatarta ku haya waayo nuclear dunida 5 milyan ka dila sanad walba miyaa jira sigaarka iyo inta u dhibata 5 milyan bay gaadhaa baa la leeyahay qiiqiisa inta u baktida دراسة كلام مريكان كو هاي سميين waxay tilmaamayaan dunida 30 milyan oo qof oo cusub sanad kasta sigaarka bartaba yidhaahdeen ku biira qaafilatul mudkhiniinka waxay 15 sanadood cilmi baadhis la sameeyay oo 4572 qof lagu sameeyay ayaa waxay leeyihiin xataa ka cabayada iyo kuwa nagtooda lagu cabay waxay aad ugu dhowdahay bay leeyihiin inay diabetes noqdaan xanuunka diabetesku inuu ku dhaco markaan soo duuduubo shiishadu sigaarka inay ka khatarsantay mooyaane kama fiicna shiishada iyo sigaar cabistuna bulshada waxay ku hayaan dhib bulsheed mid caafimaad mid jidheed mid nafsiya khalaaya dimaaq xataa sigaarku wuu dilaa xataa waxaa la leeyahay environment-kan iminka la leeyahay carbon monoxide iyo carbon dioxide kan la sii daynaya ha la yareeyo sigaar cabistu waa waxyaabaha ugu badan ee la sii daayay bay ka mid tahay bini aadamku sigaarkan uu buufinaya environment-ka waxyaabaha qarribe ugu badan bay yana ku jirta maxaan ku soo duuduubaya xukunkoodu waxaan oo dhan muxuu noqonayaa intan oo dhan waxaan idiin akhrinayay reer galbeed iyo meelahooda cilmigu waxa ay ka sheegeen haddii ay sidaasi dhab tahay balaan qur-aankana idiin sheega markaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum
washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun waar dadka mu'miniinta ah baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxa wanaagsan aan idinku arsaaqay cuna ilaahayna u mahad celiya sigaarku miyuu ka mid yahay waxa wanaagsan iyo qiiqu iyadoo la leeyahay 4,000 baan markii hore idhi maaha 4,000 oo maaddaa ku jira la leeyahay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiinna ha dilina waa qatli baطii waa dil aayara ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy waanfiquu fii sabiili اllahi walaa tulquu biaydikum ila tahluka ilaahay dartii wax ula baxa oo lafihiinna halaagka ku ridina baa la yidhi dhaqaale ahaan ninka sigaarka cabaya waxaa ka roon ninka subaxii intuu iska soo toosay dhaha niyo balwad yar baan leeyo anigu 10 pound baan gubaa 10 pound subaxii markuu guriga ka soo baxaya dabka saara maxaad odhan lahayd kaa subax walba ninka 10 pound dabka iska saara waxaa odhan lahayd de waa maaha qof caadi a odhan lahayd waa lacagu buu gubay ninka sigaarka cabaya lacagtiina wuu gubay caafimaadkiina wuu xumeeyey wax badan buu kalu qarribay kan baa ka roonoo kani lacag quru gubay laakiin kani lacagna wuu gubay dhib badan oo tiro badanna wuu geystay ilaahayna wuxuu ina leeyahay walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin wara xadgudbina israafa samaynina walaa tubadiruu idan ikhwatii fi lcaqiida isaga qaadku mid buu dheeriyeyba waxa kale drugska dunida bulshooyinka inta badan dadka liita isticmaala innaga daraggeenna inta room baa isticmaasha ummad bal adigu waxaad qiyaastaa aqoon-yahankeedii culimmadeedii hore qaar ka mida dhaqaalayahankeedii maxaa la yidhahaa caaqilkeedii suldaankeedii wasiirkeedii madaxweynaheedii intuba darag cabto bal adigu qiyaas yani wax hariiba waxay ahayd daragga bulshada inta liidataa inay cunto oo la yidhaahdo ummadda tan darag bay isticmaashaa laakiin daraggeeda dee bulshada inta liidataa isticmaashaa laakiin bulsho higher classkeedu dabaqadeeda sare ay mudminiin dhammaanteed wadatay dabaqadeeda sare ay tahay narcotic man narcoman ay wadayiin waa wax runtii aad loola yaabo qaadiyo sigaarkaba ikhwatii waa la iska dayn karaa horta qaadku isagu wuu ka fududiyey dayntiisu sigaarka wuu ka fududiyey waayo dependenska marka la xisaabinayo kuwa sare kuma jira qaadku kuwa ugu hooseeyu ku jira iska dayntooda ay fududdahay sigaarkuna waa la dayn karaa laakiin waxaad u baahan tahay inaad dayso dhowr shay kow ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim nadaradda aynu aragtidaynu ka qabno sigaarka iyo qaadku marka hore inay aragti saliima noqoto waa wax fiican iyo waa wax lagu xaragoodo iyo wax waqtiga la isku sheekada intaad ilowdo inaad xaqiiqadiisa ogaatid markaad garato inuu waxaan yahay sun aad jidhka ku dirqinayso ku buufinayso caqligu wuxuu keenayaa inaad go'aana qaadato inaad ka tagto waa marka labaad inaad ilaahay barido waa marka saddexaad inaad caziima yeelato go'aan inaad yeelato bini aadamka caqligaa hogaamiya neef xoolaa maaha qofka bini aadamkaahi saa daraaddeed waa sucuuba adayg baa ku jira in la joojiyo laakiin waa adayg laga gudbi karo qofka bini aadamka hadduu go'aan yeesho wuu joojin karayaa waana badan yihin maraykan oo qudha dhowr sannadood waxay dhahaan 30 milyan oo qof baa sigaar iska daayey sigaarka oo kii ugu sarreeyey haddii la daayo waxa ka hooseeyana waa la dayn karaa idan waxaan ku soo koobayaa wakhtiga gabagaba ahe sigaar iyo qaad waa la dayn karayaa caafimaad ahaan un baanan uga wax ka tilmaamay laakiin haddii mu'tamarka dhammaantii laga dhigo sigaar iyo qaad oo la isugu yeedho dhaqaalayahanadeenna iyo dhakhtaryahanadeenna iyo bulshadeenna iyo aqoon-yahankeenna waxaan isleeyahay kuma fillaadeen ka warrankiisa laakiin deriskan waxaa loogu talagalay inaynu isbaraarujinno dhaqaale ahaan haddaynu soomaalina waynu burburray waxaanu ka mid yahay sigaarku dowladaha yaryar ee soomaaliya ka dhisan qaar ka mid ah waxaa laysu qiimeeyey barjadka dowladduba ay sanadka ku shaqayso iyo intay qaadka dadku ku cuno waxa badan inta qaadka dadku ku cuno
yani inta qaadka lagu cunaa waxay ka badan tahay maxay barjadka dowladaha meesha ka dhisan oo dhan taa macnaheedu waxa weeyaan waynu hanti beellay oo wayna caqli tiray oo wayna caafimaad tiray oo wayna bulshadii buu burburiyey oo guryihii buu baabi'iyey oo carruurteenna soo socota ayaa ninnimada waxay u arkayaan in qaad iyo sigaar la cuno waayo inay bulshada ku biiraan waa inay goobaha raggu fadhiya dee tagaan bulshada dadka yaryari waxay egtaan un dee dadka waaweyne waxay samaynayaan haddii madaxweynahaagu qayilayo wasiirkaagu qayilayo suldaankaagu qayilayo caaqilkaagu qayilayo dan maxaa u diidaya inanka yari inuu qayilo ama inuu sigaar cabo ilaan dabaqadii bulshada u ahayd muuqaalka kuwaasiya dabaqadii uu rabay inuu ku biiro ama inuu hiigsadaa ficladay samaynayaan wuu samaynaya walidaalik inan yar ma odhan kartid war qaad iska daa war sigaar iska daa maanta dadka aan la hadlaya waxa weeyaan waa wasiiro waa madaxweynayaal waa salaatiin waa cuqaal waa aqoon-yahan waa waxgarad waa dhakhaatiir dhakhtar intuu buufiyo ku yidhaha sigaarku waa sunbalka war dhakhaatiirta soomaaliya nusba cabaa waanu buufinaya waana dhakhtar waanu ka warramayaa inuu sun yahay waa runtii waa caqli dareer weeyaan yani waa dadkii oo maanku uu ka sii guurayo waa nooc waalida ka mid ah qof arkaya wuxuu ku dhimanayo isticmaalaya waa nooc waalida ka mid ah runtii dariskan runtii dhallinyarada waxaan leeyahay waa wax xun waxaasiya hal iska dhaafo waa yeelkana waxaan leeyahay waar ummadda tusaale u noqda oo wax kale haddaana tusaale ugu noqonaynin dhaqankaaga unugu noqo oo bilaahi calaykum wax kale haddaydan ugu noqonaynin warqaad iyo sigaarkuun iska daaya haddaa intaa soomaali ku taageertaan waxaan is leeyahay wax weyn baynu qaban kari lahayn mithaal basiitaan idin siinaya waddankan turkiga la yidhaahdo magaalada istanbul la yidhahdo xaafadda faatix la yidhaahdo masaajid baa ku yaalla sankiyadim baa la yidhaahdaa sankiyadim eraygu af turkiga macnihiisa waxa weeyaan iftarad annanii akaltu aw kaannanii akaltu waaba anigii oo wax cunay nin fakhrudiin la odhan jiro oo muslim ahaa baa dhisay ninkaasi muxuu ka dhisay masaajidka dhan waxa uu ka dhisay waxa la yidhi markuu suuqa soo maro nin iska zaahida buu ahaa aw naftiisu wax yaroo ay kahatay uu arko ama uu jeclaaday khudaar yaroo fiican wax yaroo fiican ayuu wuxuu idhahaa ka soo qaad anigoo cunay dabeetana intaasuu sanduuq ku ridi jiray shaah buu u baahday ama koof u baah wax yaroo jeceliyo arkay ka soo qaad anigoo cabbay unbuu yidhahdaa sanduuq buu ku ridaa sanduuqii buu berigii dambe furay masaajid buu sanduuqaasi dhisay ka soo qaad anigoo qaad cunay haddaad tidhaahdo meel ku rido intaa hadda soomaaliyaba waa dhisaynaa wixii burburay oo dhan intaasaa ku filan haddaynu isku raacno inaynu idhaahno sanduuq laydhaha ka soo qaad anoo qaadka cunay oo maalintaa intii aad ku barjayn lahayd oo qura aad ku riday waddanka dhammaantii waa dhisi karaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu